halkani waa xaafada Siisi ee degmada Kaaraan caadiyan dhaqdhaqaaqyada bulshada waxay kala siman tahay xaafadaha ku yaala gobolka Banaadir laakiin kolka ay tahay xilliyada habeenkii lamid ma aha xaafadaha kale taas oo ay ugu wacan tahay ruux aan la arag oo jirdil u geysta dumarka ku nool xaafadaasi Maryam waa gabar 11 jir ah dhaawac ayaa ka muuqda wajigeeda kaas oo u geystay qof aan la arkeynin waxaana uu u adeegsaday dhagax oo uga dhuftay wajiga Maryam waxay iiga waramaysaa bal sida ay wax u dhaceen dhagax oo kugu dhuftay haye adiga intee mareysay tilmaamaha ay dadka bixinayaan waxa kamid ah in ninkaani aanu ahayn ruux dhacama kufsi u geysta dadka waxaana si gaar ah u bartilmaameystaa dumarka isagoo aanan u kala saarin yar iyo weyn wuxuuna ka dhibaateeyaa wajiga oo kaliya marka laba tihiin ma ku taabanayo marka saddex tihiin ma ku taabanayo laakiin wuxuu ku taabanaa marka kaliya taho kale wada marka uu soo dhacdo kale luuqo kaaga soo baxa xijaabko jabka siina marka fiirsidna wuu ku fiiraa ninkaas kule waa nin oo si aad dadka u dilo wali wuxuu beesadaa haweenka rag oo kale ma taabto marka wadada soo gasho wadada kaaga hor imaanayo xijaab gadaal jaka siinayo mar alla markuu xijaab gadaal jaka siiyo gadaal u jeestid inuu feeska naga hadlaynayo tirka 10 gabdhood oo feeska ka hadlayay khaasatan caruurta yaradna sidoo kale to gabdhaha feesku ka dilaya dibku waxa kamid ah oo abeen meel lagu marayo ayuu gafuurka iga jibshay sifooyinkani ninkani kolka ay dadku ku sheegayaan waxa uu ku sawirma hab dhaqanka dagaalka ee mararka qaarkii uu jinku la galo aadanaha bal aynu aragno tilmaamaha ay ka bixinayaan sida uu eg yahay qofkani wallahi qof waaladna ma ahan qof miirkeeda qabtana ma ahan laakiin waxaan ku tilmaamo oo garanayno ma wal qiyaasi karo ma ahano ninku waa nin gacmo dheer wuxuu yahay jini in si wax lagu tilmaami karo ma sheegi karo wallahi laakiin nin bili aadan uu ku tilmaami karna umaleena لا وعيا إلهي أكو علم لأني ما أقاني لكن سيدان أمالينا نجيني إنو يانكو تلمام والله جيني نكومة المامي كرا بلي آذا نكومة المامي كرا قفكاس قف لي خيام بهم بمرا لما كوجو كورفتاني دولو عير ما بقى تقانيد بهروكا غرورايا xaaladahani waa kuwa ka dhaca meelo badan oo dunida kamid ah laakiin waxay kala halis badan yihiin kolka uu kula dagaalamayo ruux aadan arki karin oo ku dhibaateynaya haba yaraatee aadan ka bixi karin tilmaamo cad